madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qotay gudkii ugu aasi lahaa macnaha wuxuu sameystay wixii ay dadka Soomaalida ku nici lahaayeen kula dagaali lahaayeen oo tii ka dhacday Hargeysa oo Muuse Biixi camal ay ku dhici doonto waxa ka shaqeeyay arrintaasi raggii oo ammaanka u dhigtay si gaar ah booliiska iyo nabad sugid waxaan kula wadaagayaa xogtan adina waad marqaati furi doontaa haddii Muqdisho ku suganta oo aad aragtay muuqaalkan reey aad amaasanta magaalada Muqdisho haddii guri la burburiyo haddii dhul la isku haysto haddii ganacsi mashaariic la qaadanayo haddii wariyaal la xirayo haddii siyaasiyiin la xirayo waxa xaqiiq ah booliiska Soomaaliyeed iyo nabad sugiddu hadda ku soo beertay inay dadkaas u sheegaan in amarka madaxweynaha uu yahay dhulka amarka madaxweynaha lagu burburinayo hantidan amarka madaxweynaha lagu qaadanayo siyaasigan amarka madaxweynaha lagu xiray wariyaasha lagu xirayo wax kasta oo dadka kici lahaa oo dadka caroon lahaa waxay leeyihiin waa amar madaxweyne sidoo kale waxay leeyihiin qoyska madaxweynaha waxa raba marwada madaxweynaha sameeyay wiilka madaxweynaha sameeyay adeerka madaxweynaha sameeyay wixii oo dhan waxa laga dhigay madaxweyne meeshaas waxa ku jirta hal ujeedo oo ah in ayaga dambiga iska duwayaan kuwa falkaas ku jirana ay dambiga ka leexinayaan si hooshooda ugu fududaatana meeshii loo caban lahaa oo madaxweynihii ah ay ka dhigayaan qof aan dadka u naxayn oo wax kasto xunba isaga soo amray madaxweynihii dadka in la iska horkeenayo in madaxweynihii laga dhigay nin dhulka isaga qaadanayo oo qoyskiisa u qaadanayo in madaxweynihii laga dhigay qofkii hadla isaga inuu amray in la soo xiro in madaxweynihii laga dhigay ninkii maalin Facebook ku soo qoray lacagta hadda waxay raadinayaan ninkan wariyaha Cumar Maxamuud la yiraahdo magaalada Muqdisho jooga wariyaasha dhalinyarada oo ku jira madaxweyne macay dawladdu wax kama sheegin nabad sugid wax kama sheegin 8 saac oo habeenimo oo wax dhimana gurigooda looga dhacay asaga iyo laba wiil oo kale isaga xiligaas waa maqnaa wala jir dilay indhaha laga xiray labadii wiil oo mid kamid ah walaalkiis oo aamin oo saxafi kale ah oo Bashir Cali Shir la yiraahdo waa xireen xarunta hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee Shibisa lagu xiray markii loo cawdo loo tagay waxa la nimanka waa diinina ninka wariyaha soo daayay shar waxay la fariisteen xubno kamid ah qoyskiisa waxay yiraahdeen anaga ma haysano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan soo amray ilaa isaga la xiro wax xagaagaya male dood waxay ka dhigeen guddiga doorashooyinka ee dacwo qabaan guddiga doorashooyinka la xiriiray waxaan weydiiyay doodaas guddiga doorashooyinka waxay sheegeen in wariyahan haysanin dacwo ka gudbinin hanala soo xiray aysan dhihin arrintu waa xumaatay xog waxaan ku helnay agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Samburushi in lagu been abuurto isaga xitaa oo saxan ogeyn oo rag saraakiil kale oo isaga ku hooseysa falka ay sameynayaan inuu su'aal geliyo waa ninkan laga rabo markii arrintu ku cuslaatay nimankii saraakiisha nabad sugidda ahaa ee falkan ku lug lahaa ee dana gaar ah ayaga doonayay oo siyaasiyiin kale soo dhaxmareen waxay u direen macluumaad oo booliiska ah dhiiqa la gelino macluumaad معلومات يا اللي يري أنا قاعد ربنا أنا بسقط أود السنة سير درتيد فل وسم بوليس كشغل كلين وما حي معلومات أو بوليس كأه صوت وأدي يجينا هنا بسقط وأنا بسقط قولي ليه ساعة تدوس ساعة من وجود لين معلومات يا وعي حمل سياسيين يهل كيس حولية أنا صوت الصدق هنا بسقط يسقط بوليس كم حود درسوها وحاول إنه كيس كسر كلين لكن أنا بسقط هذا ربطوا إنه بوليس كوريج على أي حال نكات الله هذا falkiisa waxa ku lug leh niman siyaasiyiin ah markii ay qaban waayeen ayaga oo shaqadan qaban waayeen ayay waxay soo dhaxmareen nabad sugidda Soomaaliya si loo suurad dilo Samburushi oo agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ah iyo madaxweynaha nimankii oo soo dirsadeen oo la aaminsan yahay in aragtidaas iyo qorshahaas meel kale ka timid ayayna waxay leeyihiin madaxweynaha qaranka soo amray ilaa madaxweynaha ninka loo geeyo wax xagaagaya male si loo sharaf dilo madaxweynaha oo la isugu diray Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadkii dagaalada u halgamayay oo furmaha dagaalku Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ehelkiisa dadka ka agdhow waxa horta la su'aala madaxweynaha ma amray in la boobo madaxweynaha ma amray in haweenka la dilo madaxweynaha ma amray in 8 saac oo habeenimo carruurta iyo haweenka laga naxiyo guriga loo dhaxo madaxweynaha ma amray in wariyaasha la xiro madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ma soo amray in siyaasiyiinta la xiro haddii haa tahay kalaasho mal oo ka way madaxweynaha qaranka waa haddii saaka usan ahayn madaxweynihii waa la surul xumeeyay dadkii waa laga hor keenay nin tuuga laga dhigay nin dilaha laga dhigay nin aan wax dhaafina laga dhigay hay'adaha ammaanka ka dhigayo in lagu la xisaabtamo oo la yiraahdo yaa ku diray hada ma santa aragtana la wadaag muuqaalkana soo share garay haddaad ku cusubtaan nagu soo fiir